waa xigmadda maalinlaha ee aad kala socon jirteen page-keena MCC Jacaylo. Waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo ah saaxiibkiin. Aamusnaantu waa nabadgelyo, sababtoo ah haddii aad hadasho waxaa laga yaabaa inaad qalad gasho. Aarsiga ugu weyni waa cafis. Wixii aad maanta barato ayaad berrito helaysaa. Caqabad kasta oo kugu timaado waxay kuu tilmaamaysaa waddadii aad ku guuleysan lahayd. Si kasta uu dadaalkaada u liito, marnaba mirihiisu eber ma noqdaan. Dhalaan kasta oo dhasha horay kama ordo. Dadaalkaagu mirihiisu waa sidaa oo kale. Qof kastoo ku siiya lama helo, balse qof wax kuu sheego lama waayo. Haddii maanta aysan maalintaadu ahayn, berrito waa maalintaada, insha Allah. Qofkii wax badan damciya, dhammaan ayuu waayaa. Dheef ayaa la weydiiyey oo la yiri, dheefay xaggee lagaa helaa oo aad joogtaa? Dheeftii dhibta gadaasheeda ayaan jiraa. Eber waa tiro aan laga maarmin, sababtoo ah wax kastoo eber ayay ka bilowdaan. Xaqiiqo fogaantu dhib ma laha mar haddii xididka xiriirku uu xoogan yahay. Go'aan kasta oo aad gaarayso ka fikir waxa mustaqbalku dhici doono. Inkastoo wax walba mustaqbalka dhici doono oo Alla uun ogyahay. Ha xisaabinin waxa gacantaada aan ku jirin inta aadan helin ka hor. Haddii aadan sabab u noqon karin qof dhoola caddeyntiisa, sabab u noqo qof ilmeyntiisa. Hooyo waa albaabka aad dunida ka soo gashay, waana albaabka aad jannada ku geli doonto insha Allah. Sababteedana marka daryeesho hooyada. Haddii aad bilowdo inaad qof jeclaato, way adag tahay in aad is-xakamayso. Ha aaminin kuwa ku dhahaya waan ku jeclahay, ee aamin kuwa ku dareensiinayo inay ku jecel yihiin. Kalsoonidu xad-dhaafka ahi way ku dishaa. Xaqiiqo kalsooni daradu waxay dishaa xiriirka jacaylka ee labada qof ka dhexeeya. Ma jiro qof wanaagsan ama qof xun. Qof kasta waxa uu yahay sida aad ka aaminto. Maalmuhu waa isku mid, laakiin dhacdooyinka ayay ku kala duwan yihiin. Wax kasta waa macquul waa haddii aad aaminsan tahay in aad samayn karto. Si kasta uu dadaalkaada u liito, marnaba mirihiisu eber ma noqdo. Qof kasta qalad wuu galaa, balse waxa ugu fiican kan ogaada inuu qaladka ku jiro dibna ugu soo laabto. Qofna qalbigiisu ha dhaawicin, sababtoo ah qalbiga waxaa dhaawici kara hal eray oo si qalad ah loo yiraahdo. Qofna laguma qiimeyn karo aragtida koowaad. Qof wanaagsan noqo, laakiin waqtiga ha ku lumin sida aad u caddayn lahayd inaad tahay qof wanaagsan. Dabcan lacag wax kasta kuma heli kartid. Ku qanac waxa aad haysato, waxaad noqonaysaa qof faraxsan weligiis, insha Allah. Qofna ha ku tiirsan in badan, sababtoo ah ma jiro qof markasta kula joogayo. Qofna ma liito, balse waxaa jira qof aan aqoon halka uu ku fiican yahay. Haddii aad isku daydo inaad dadka oo dhan raali geliso, ogow qofna ma raali gelin doontid. Saaxiibkaaga xuni waxa uu kuu horseedaa mustaqbal liita. Tartanka aad la gasho dadka ka hooseeya hoos ayuu kuu dhigaa, balse tartanka aad la gasho dadka ka sareeyo sare ayuu kuu qaadaa. Wax kasta oo aad samayso, wanaag ama xumaan, adiga ayay dib kugu soo laabtaan. Qofka xumaan kugu sameeya wanaag ugu beddel, wuxuu dareemayaa awooddaada. Hantidaada ugu qaalisan ee aad haysato waa waqtiga. Ku bixi waqtigaaga meel ku habboon ama ku fiican. Wixii si fudud
lagu helaa si fudud ayay ku baxaan.